Waxaan idiin soo binayaa laba qoraa oo 39 sano ka hor sii sheegay in magaalada Wuhan la keeni doono virus halisa. Buugga koowaad waxaa la dhahdaa Dark of Eyes of Darkness, indhihii mugdiga ku jiray. Qoraaga buuggan waxaa la dhahdaa waa Dean Koontz, waxaanu qoray sanadii 1981. Qodobka uu fayraska kaga hadlayo oo kooban ayaynu dul istaagi doonaa. Waxa uu odhanayaa dib u raac 20 bilood oo macnaheedu yahay xilligii buugga la qoray 1981, 20 bilood ka hor. Saynisyahanada Mareykanka waxaa ka soo baxsaday saynisyahan Chinese oo lagu magacaabi jiray Li Chen. Waxa uu la soo baxsaday macluumaad aad muhiim ugu ahaa dalkiisa China, khatar weyn ku ahaa dalkiisa China, kaasoo ahaa hub biological kaasoo lagu diyaariyey RDNA lab. Fayraskan oo magac ahaan buugga ugu qornaa Wuhan/400. Wuhan waxay ku taalaa dalka Shiinaha, waana magaaladii u horeysay xanuunkan COVID-19 aadka uga faafay. Haddaba buugga labaad ciwaankiisu waa End of Days, ayaamihii u dambeeyey. Waxa qortay Sylvia Browne. Waxaa la qoray 2008. Waxay buuggan ku sheegtay in 2020 adduunka ka dhici doono xanuun halisa kaasoo ku faafi doona adduunka oo dhan. Waxay sheegtay in xanuunkan u ekaan doono sida oofta ama pneumonia loo yaqaano, kaasoo ku dhici doona sambabada, hunguriga iyo neef-mareenada. xanuunkaas oo aan loo heli doonin wax daawo ah. Waxa ay saadaasheedaas ku sheegtay in xanuunkan aanu jiri doonin waqti dheer, isla markaana uu si dhaqso u baabi'i doono. Waxa kale oo ay sii raacisay isla markaana 10 sano kadib soo laaban doono isla xanuunkani oo uu gaadhsan doono intii hore uga kacday. Kadib wuu baabi'i doonaa xanuunkani, dibna u soo laaban maayo, ayay ku sheegtay buuggeeda Sylvia Browne. buuggani qortay 2008. Haddaba daawadayaal, dhacdooyinka aanu buugaagtan ku soo qaadanay maadaama ay yihiin wax diinta Islaamka ka baxsan, maadaama ay yihiin buugaag la qortay, waxa kaliya ee lagu soo gudbiyey waa ka warqabid anigoo Bashiir Xuseen Xirsi.